Sirwada kheyr wax ka hadli doonaa xaaladii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud oo go'aan ka gaaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed wasiirka amniga markaasi fartaag taliyaha ciidanka hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad iyo ra'iisul Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku wajahan gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharey arrintaas waa falqayn doonaa Axmed Maxamed Salaam Axmed oo si toos ah markan ula heshiiyay dowladda Itoobiya arrimo waaweyn laga caawin doono Axmed si aan maamul looga dhisin gobolka Gedo arrintaasna soo qaadan doonaa xiisada ka taagan gobolka Gedo iyo meesha hadda ay wax marayaan waa soo gudbi doonaa waxaan kala soo gudbi doonaa in Somaliland heshiiska ay la gashay Puntland oo la fashiliyay kadib markii la sheegay in xaaladaasi ay baarlamaanka Somaliland ay diideen saylac iyo xaaladii ugu dambeysana soo gudbi doonaa Ethiopia iyo Eritrea oo isku sii fogaanaya mar ka dambeysana waa soo gudbi doonaa barnaamijka Garay meel Garcia waxaan ka hormaraynaa gobolka Gedo xiisad ayaa ka taagnayd muddooyinka la soo dhaafay waxaana jirtay in Axmed iyo Xasan Maxamed wada hadal ay galeen kadibna oo fashilmay arrintaas markay dhacday kadib waxa bilowday olole ka dhan ah Axmed Madoobe oo lagu dhisay maamulka New Jubbaland cusub ee yeelan doonta gobolka Gedo madaxweynaha Soomaaliya waxa haysato laba daran mid dooro cidda oo siinay madaxweynaha Jubbaland ayaa la isku haystaa ama Jubbaland cusub beesha Mariixaan ay siin doonaa oo beesha ogaadana madaxweyne ku-xigeen ka dhigi doonaa mise beesha ogaadana siin doonaa Mariixaan ay madaxweyne ku-xigeen ka dhigi doonaa arrintaas ayaa la isku haystaa mid kale waxay tahay waa xiisadii way taagan tahay oo hadda waxa hadlay gudoomiye Lafay gudoomiyaha Doolow oo sheegay in aysan suuragal ahayn in maamul laga dhiso gobolka Gedo wuxuuna sheegay in arrintaasi cawaaqib xumo ay ka dhalan doonto suuragal aysan ahayn in aqbali doono haday yihiin Jubbaland maadaama uu yahay gudoomiyaha Doolow ugu magacaabay Jubbaland xiisada halkaas ka jirtana uu sheegay in ay dhibaato badan keeni doonto in beelaha halkan degan ee markaasi beesha Mariixaan ula jeeday in la isku diro sax ma ahayn mana yeeli doono in maamul halkan laga dhiso ayuu yiraahday marka xiisada gobolka Gedo way taagan tahay Cabdirashiid Janana odayaasha iyo nabaddoonada ay ula shiray wuxuuna sheegay in markaasi dagaal loo diyaar garoobo Axmed inuu soo tafaxiidanayo hubna oo soo wato una doonayo in gobolka Gedo soo weeraro sida uu sheegay marka wuxuu yiraahday waa inaas badbaadinaa kana hortagnaa Axmed Maxamed Salaam Axmed iyo qorshihiisa mid kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa go'aan ka gaaray Axmed Maxamed Salaam Axmed inuu markaas si degdeg u dhiso maamulka cusub ee New Jubbaland kadib markii beesha caalamka ka dhaciyay inay markaas ogolaadaan maadaama Axmed heshiis diiday sidoo markaasi la sheegay oo la kulmay maalintii hadda laba maalin ka hor ee la soo dhaafay ka soo laabtay Kismaayo inuu markaa beesha caalamka u sii sheegay wargeliyay inay markaasi dhici doonto in Jubbaland cusub la dhiso dowlado badan oo dowladaha dariska ay ugu horeeyaan dowladda Itoobiya ugu horeysa ayaa diidan in maamul cusub laga dhiso gobolka Gedo ayadana la sheegay in Axmed ka caawin doonaan oo xitaa wasiirada ka soo baasaboorka Itoobiya haysta ee dowladda federaalka Soomaaliya ku jira inay markaas kala laaban doonaan baasaboorka oo ay markaas kansali doonaan arrintaasna waxay halis weyn gelinaysaa wasiirada markaasi Itoobiya si dhow ula shaqeyn jiray isla markaana ku jira qaarkood baarlamaanka Soomaaliya ayaa laga yaabaa in dowladda Itoobiya ay kala laabato baasaboorradeeda mid kale waxa magaalada Garbaharey ku wajahan sida la sheegay taliyaha NISA Mahad Salaad iyo ninkii la yiraahdo Fartaag oo ah wasiirka amniga iyo ra'iisul Soomaaliya Xamse Cabdi Barre taas oo culays ku sii kordhinayso madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed ayadoo la sheegay in Axmed inuu ku dadaalayo inuu ka hortago si aysan u suuragelin imaatinka dadkaasi halkaas ku soo wajahan xaaladda oo isbedel waaweyn la sheegaya inay dhici doonto oo xilka markaasi Cabdirashiid Janan oo hadda hayo laga bedeli doono loona bedeli doono wasiirka amniga ee markaasi dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynahana laga dhigi doono Fartaag sida ay warbaahinta ay dadka qaar ay la wadaageen iyo dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan oo xogtan soo dusiyay marka haddii ay tagaan oo sidaas laga dhabeeyo ay tagaan gobolka Gedo waxa markaasi dhibaato ka dhici doontaa in ciidamada Jubbaland oo gobol Gedo qayb kamid ah ku sugan iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan waxayna sheegeen in haddii ay soo gaaraan gobolka Gedo dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka socoto inay markaasi toos dagaal ugu qaadi doonaan isbedelna laga arki doono xitaa Garbaharey ay sheegeen inay weerari doonaan ciidanka Jubbaland oo ciidamo tiro badan Axmed u soo diray gobolka Gedo saacadii la soo dhaafay ay ka soo gudbeen dhanka iyo Jubbooyinka meesha ku dambeysay xiisadaasi waa arki doonaa iyo haddii mas'uuliyiintan ay tagaan gobolka Gedo iyo haddii u suurageli weysaba halkan ay ku daawan doontaan waxaa kaloo jirto in heshiiskii ay galeen nimanka lagu magacaabo Puntland iyo Somaliland in heshiiskaas oo fashil qarka u saaran yahay kadib markii la sheegay inay diideen oo ay markaas ka hor yimideen nimanka lagu baarlamaanka ee Somaliland ayagoo u sheegay inaysan hadda suuragal ahayn in heshiiskaasi la dhaqan geliyo baarlamaankana la horgeeyo wasiirka madaxtooyada ayaa la sheegay Somaliland inuu qorshahaasi waday oo baarlamaanka inuu horgeeyo rabay dhaqaalana uu ku bixiyo laakiin arrintaas waxaa ka hor yimiday xildhibaanada baarlamaanka Somaliland iyo labada xisbi ee kala ah Kaah iyo Kulmiye oo ah laba xisbi oo mucaarada kana soo horjeedo xukuumadda hadda jirto Cabdiraxmaan Ciro hogaamiye arrintaas marka waxay halis gelisay in heshiiskaasi waxaana u badan tahay in heshiiskii Nairobi ka dhacay ee Puntland iyo Somaliland ay kala saxiixdeen maalmihii la soo dhaafan muran fara badan oo warbaahinta ka dhaliyay in hadda dib looga laaban doono oo meeshiisii oo markaasi ku laaban doono arrintaasina waxaa aad markaasi ugu farxay maamulka Waqooyi Bari oo ayagu aan ku qanacsanayn in labadan dhinac ay ku heshiiyaan in wax la yiraahdo Waqooyi Bari aysan jirin
laakiin dood fara badan oo ka dhex dhalatay iyo baarlamaankoo diiday iyo xukuumaddii hore ee cabdiraxmaan muuse biixi oo hogaamiyo oo cadaadis saaraya iyo xisbiga cusub ee ka ayaa la sheegayaa inay markaasi culays weyn ku noqon doonto weliba xildhibaanada kasoo jeedo beesha dhulbaante oo ayagu markaasi sheegay inay arrintaasi dee hirgeliyaan oo ay baarlamaanka horgeeya lana marsiiyo inay weerar tahay oo dagaal ay ku qaadi doonaan lasacanood cabdiraxmaan cirre iyo maamulkiisa ayna waxba ka doonayn muuse biixigii xilka laga tuuray waa arki doonaa wixii kasoo kordho somaliland iyo xaaladeeda iyo meesha ay ku dambeyso haddii aan tagno dhanka iyo markaasi gobolka maxaa la yihahda awdal state iyo gaar ahaan maxaasha la yihahdo saylac in markaasi xiisada ka jirtay muddooyinka lasoo dhaafay oo u dhexeysay beelaha ciise iyo samaroon inay weli xiisadaasi ay taagan tahay waxayna beesha samaroon ay wacd ku martay in haddii la keeno xeer ciise saylac ay dhibaato la kulmi doonaan beesha ciise xiisadna halkaasi weli ay ka taagan tahay weliba labadan beelood waxaa la sheegay inay dabada kala riixayaan beelaha markaasi isaaq iyo beesha ciise ee jabuuti degto ismaaciil cumar geelena madaxweynaha u yahay in markaas isaguna uu qayb ka yahay dhibaatada ka jirta saylac maadaama hub iyo saanad military la sheegay inuu siiyo beesha ciise labadan beel oo walaalo ah oo wax weyn aysan ka dhexaynin ayaa waxay isku haystaan gacan ku-haynta magaalada saylac oo ah magaalo qadiimi ah oo 100 sano ama 10 sano jirtay oo xitaa waqtiga axmed gurey uu ka dagaalami jiray kuna dhashay sida la sheegay oo ah magaalo taariikh weyn oo fac weyn leh in markaasi hadda la isku haysto cidda iska leh iyo cidda markaasi degan ama cidda majority ahaan u badan arrintaasna waa arki doonaa wix kasoo kordho haddii aan tagno etoobiya waxaa jirto xiisad weyn oo u dhexayso dowladaha etoobiya iyo elitaria kadib markii saanad military labada maalin lasoo dhaafay laysku aruursanayay oo hub aad u weyn oo casriya soo bandhigtay dowladda elitaria ayadoo la arkaya saas afwarki oo aad u dhoola cadeynaya markaas isagoo arkaya ciidamo tiro badan oo tababar loo soo xiray aadna u qalabaysan marka militariga dalka etoobiya ayaa ayaguna arrintaas ka naxay kadib markay daawadeen telefishinada ayna arkeen elitaria oo ciidamo aad u qalabaysan soo bandhigtay inkastoo dowladda etoobiya la leeyahay maalmihin lasoo dhaafay waxay soo iibsatay diyaaradaha casriga ee aan africa aan oolin oo markaasi A35 loo yaqaano oo ruushka uu sameeyey in markaasi 16 ka mid ah ay lasoo wareegtay qayb ka midana ay soo iibsatay qaybna markaasi la amaahiyey oo lacagta si tartiiba ay iskaga bixin doonto haddii marka dagaalka etoobiya elitaria uu qarxo xaaladdu intaan kasii duwanaan doontaa waxaana laisleeyahay yaa guulaysan doona inkastoo diyaaradaha dagaalkooda joogto uusan ahayn dhul aysan qabsanayn waxa dhulka qabsanaya ay tahay infantryga haddana waxaa la sheegay dowladda elitaria in infantrygeedu aad u badan yahay ayna haystaan infantry aad u xoogan oo aan waxba ka qaban karin diyaaradaha maadaama xataa ay godad intay qotaan ay ku dagaalami karaan marka waa arki doonaa haddii etoobiya ay casmaro burburiso ay markaasi la wareegto dekada casab iyo haddii markaasi elitaria intay soo duusho magaalada addis ababa ay markaasi la wareegto maadaama taageero weyn ay ka haysato qowmiyadaha dalka etoobiya sida tigraaga iyo afaanada nimanka la yidhaha amxaarada oo ay ka haysato taageero buuxdo waxaana la sheegaya amxaaradu inay gaarayso 40 milyan tigraaguna inay gaarayaan 4 milyan 44 milyan lagu daray 4 milyan oo eritreyaan ah 48 milyan oo markaasi ah dadka dagaalamo oo aad u dagaalamo oo laga boqo dalka etoobiya markii laga reebo soomaalida inay yihiin dad aan loo dhawaan karin marka arrintaasna waxay halis gelinaysaa kontonka ama 45 milyan ee abiy axmed oo watay oromada ah ayaa meel cilaa soo istaagi doona haddii dagaal uu ka qarxo wixii kasoo kordha iyadana waa arki doonaa haddii aan ku laabano gobolka gadow waxaa la sheegay in cabdirashiid janan si degdega oo markaasi xilkiisa u weyn doono markii madaxweynaha new jubbaland cusub la magacaabo xilkaas ee hay-adda nisa u magacawday ee gobolka gadana laga qaadi doono loona bedeli doono magaalada muqdisho uuna noqon doono wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya taasoo asiga la sheegay in lagu qanciyey laakiin uu usii ololeyn doono in fartaag uu noqdo madaxweynaha jubbaland ee cusub inkastoo arrintaasi halisteeda ay leedahay oo xiisada taagan hadda cabdirashiid janan oo culays weyn ka wajahayo oo la sheegay dowladda etoobiya inay si toos ula safartay axmed maxamed islaan axmedoobe oo ay leedahay waa ninka keliya aan ku aamini karno jubbaland in markaas madaxweyne kale u yimaadana ma suuragelaysay waa inaan ka hortagnaa qorshaha dowladda federaalk soomaaliya sababtaas ayaana markaasi la sheegay in wasiiro iyo xildhibaano baasboor etoobiyaan haystay in baasbooradooda laga kansalay ayagoo markaasi cadaadis lagu saaray inaysan dowladda federaalk soomaaliya kala shaqayn ina markaa siday rabaan ay ka yeeshaan ama gobol gada maamul cusub la magacaabo midda kale magaalada muqdisho ayadan waxaa ka taagan in arrin muhiima oo markaasi saacadii lasoo dhaafay waxaa la sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo magacaabay guddi kasoo tala bixiya new jubbalanta cusub ee laga dhisi doono gobolka gado guddigaasina waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha cali xoosh iyo waxaa ka mid ah wasiirka waxbarashada markaasi ninka loo yaqaano farax sakiin iyo waxaa kaloo ka mid ah wasiirka waxbarashada wasiirka shaandhiga iyo wasiirka markaasi sida la sheegay arrimaha dibadda oo asagoo markaas iyo ra-isul ku-xigeenka labaad oo ayaguna markaasi ka qaybgeli doono in kasoo tala bixinta sida ay noqon doonto new jubbalanta iyo qorshaha laga samayn doono wixii kasoo kara barnaamijyadaas oo halkaan ku daawan doontaa barnaamij shargare meel fogaarsiiya inta barnaamijkan barnaamij limi kun doono waxaad leenahay fi amaan illah